waana wanaagsan gebi ahaantiinba daawadayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dabagalka oo alaaba aynu ku soo qaadanno xogaha dahsoon iyo sidoo kale siraha siyaasadda aynu u iftiiminno daawadayaasheena nugu taxan waxaynu ku soo qaadan doonaa xildhibaan macallimu oo arrimo badan oo dahsoonaa shaaciyey farna ku goday ciidamada admis iyo sababaha ay u geli la'yihiin dagaalkan xooggan ee ka soconaya guud ahaan dalka yaa al-shabaab u gudbiya xogta dekedda muqdisho ayaad kaga bogan doontaan oo xogo dahsoon aan idinkaga hayo sidoo kale deegaano cusub oo lagala wareegay kooxda al-shabaab iyo magacyada xubno ka tirsan kooxda al-shabaab oo lagu dilay dagaalo ka dhacay deegaanadaasi madaxweynaha dalka xasan sheekh maxamuud oo qoraal ka soo saaray kacdoonka lagula jiro kooxda al-shabaab waxaana uu ka dhawaajiyey in aysan dhici doonin wax la yidhaaha dib u noqosho qodobadaas iyo qodobo kale ayaan ku iftiimin doonaa barnaamijka dabagalka balse marka hore daawade waxaan kaa codsanayaa inaad janalka sabskrayb taabato muuqaalkan laag dhahdo oo aad u sii sheer garayso saaxiibadaada kala duwan ee kugu weheliya baraha bulshada mar weliba waxaan u taaganahay inaan kuu soo gudbinno xogtii ugu dambaysay iyo sidoo kale warar xaqiiqda ku salaysan innagoo ku baahinno halkan daqiiqadba daqiiqadda ka dambaysa aynu ku bilowna xildhibaan macallimu ayaa arrimo xasaasiya shaaciyey kuwaasi oo ahaa kuwa dahsoon waxaana uu bannaanka keenay siraha ee ku aadan in ciidamada nabad ilaalinta midowda afrika ee loo yaqaanay awalkii hore amisom ee loo beddelay magaca admis ay kaga qayb qaadan la'yihiin dagaalada ka soconaya qaybo ka mida dalka xildhibaanka ayaa sheegay in admis ay far ku godan tahay ciidamada howlgalka midowda afrika ee admis horeyna loogu yaqaanay amisom sannado ka hor waxa ay ka qayb qaadan jireen ama ay hormuud ka ahaayeen howlgallada ka dhanka ah kooxda al-shabaab xilligii wariyanimadeyda ayuu yidhi waxa aan u raacay howlgallo badan oo kooxda al-shabaab lagaga saaray deegaano badan sida qoryooley buulamareer ilaa baraawe xilligaas amisom waxa ay ku doodi jireen in ciidamada xoogga dalka soomaaliya aanay awood badan lahayn dadweynaha deegaanadana aanay wada shaqayn ka haysan hadda ciidamada xoogga dalka soomaaliya waa kuwa dagaal adag kula jira kooxda al-shabaab shacabkii waa kaa u kacay kooxda al-shabaab in la iska dulqaada laakiin nasiib darrada jirta waa admis ayuu yidhi oo gacmaha ka laabatay dagaalkii kooxda al-shabaab kula jireen oo keliya ku soo ururay isdifaac sidaan xal ma aha baarlamaanka soomaaliya waxaan u soo jeedin lahaa kolka uu furmo kala fadhiga inagu soo aadan in la iska waraysto howlgalka admis ciidamada 20,000 gaaraya oo magaca kaalmada soomaaliya mushaar ku qaata oo aan haddana ku ciidamaynayn waa arrin culus oo shaki badan abuuraysa ayuu yidhi xildhibaan macallimu waxaa kale oo iyana nasiib darre kale ah ciidamada qaaska ah ee tababarka sare leh ee soomaaliyeed inay ku shaqeeyaan amarro shisheeyo oo ay madaxda ciidamada awood kooban ku leeyihiin waxa ayna mararka qaarkood ciidamada iyo xoogaga kacdoonka dadweyne geliyaan cabsi iyagoo u sheega in dhowr boqol oo al-shabaab ah ay dhankooda ku soo socdaan darooniskoodana ay arkayaan ma duqaynayaan juuq oo ma yidhaahdaan ayuu yidhi haddii ayse iyagu ay howlgalka qayb ka yihiin dhan walba waa laga taageerayaa oo ay ku jirto duqaynta ay codsadaan si loo yidhaahdo ciidamada dal ee hiblaayo u tababaran waa cajiib ma garan karo goorta ciidanka soomaaliyeed uu labo qaanad kala galay ayuu yidhi xildhibaan macallimu waxaa la joogaa xilligii kooxda al-shabaab waddanka laga saari lahaa haddii ciidamada ajanabigu aanay howlgalka iyo dagaalada socda aanay qayb ka ahayn ma aqaano sabab ay dalka u joogaan haddii ay inaga baxaanna shisheeyaha saddex unbay mid noqon in runta loo dhaadhaco oo aan al-shabaab jihaad sax aan la galno kana adkaana sida ka jirta deegaano badan oo Soomaaliyeed
in al-shabaab sidii daalibaanka ay inaga adkaadaan oo dalka ay la wareegaan iyo in cid walba ay taagtiisa runta u sheegto oo la gaaro heshiis dhab ah. wixii intaasi ka soo hara waa qorshe ha dhiman hana noolaan. waxa aan aaminsanahay haddii ay daacadnimo jirto al-shabaab bilo yar gudahooda si weyn ayuu u soo wiiqmayaa lagagana adkaanayaa, balse waxaa muuqata ra'yi ay dad badan ka qabaan shisheeyaha waddankeenna jooga oo ah in al-shabaab nalagu dulhayo. dhanka kaleetana madaxweynaha dalka xasan sheekh maxamuud ayaa qorshe ka soo saaray kacdoonka lagula jiro kooxda al-shabaab, waxaana uu sheegay in aysan jirin wax la yidhaaha dib u noqosho. madaxweynaha dalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa qoraal dheer uu ku soo qoray guluf colaadeedka ka socda dalka waxa uu ka sheegay in ay dib uga laaban doonin dadaalada ay dadka shacabka iyo sidoo kaleeto ciidamada dowladda ku wajahayaan kooxda al-shabaab. qoraalka madaxweynaha oo dhinacyo badan taabanayay ayaa waxa uu sheegay inaysan jirin waqti ka wanaagsan xilligan oo uu dareemayay rajada uu ka qabo jebinta kooxda al-shabaab, taasi oo sababteeda ku sheegay midnimada bulsho ee lagu wajahaya dagaalka kooxda. waxaana uu sheegay in ay gadaal aysan u laaban doonin. Soomaaliya waxay dagaal kula jirtaa koox argagixiso oo caalami ah oo arxan daran, akhlaaq daran, oo aan la aqbali karin inay dalkeena iyo dadkeena ku dhex noolaadaan kagana dhex shaqeeyaan afkaarahooda guracan. haddii aynan ka suulinin kooxdan dabindaabeynta iyo sidoo kale dhibaateynta ay ku hayso bulshadeena, waxaa ka go'an inay baabi'iyaan jiilasha dambe iyo in dhibaato ku filan way gaarsiiyeen shacabkeena. waxaana leenahay hadda waxaa la joogaa xilligii uu gabalkiina dhici lahaa, ugu dambeyntiina aan soo afjari lahayn arxandaradiina. al-shabaab waxay u bareereen ayuu yidhi dilka, naafaynta, baadda iyo sidoo kale dhaca shacabka Soomaaliyeed oo ay caadaysteen inay xoog uga qaataan hantidooda. waa cadowga iyo halista ugu weyn ee maanta ay ummadeenna iyo qarannimadeenu wajahayso, ayna u tahay in aan cududeena isugu geyno xilligan adag ee dhibaatooyin bini'aadanimo iyo kuwa dhaqaale lagu jirana dalkeena. kooxdan qowleysatada ahi waxay qarxiyeen ceelal biyo dadka Soomaaliyeed iyo xooluhuba ay ka cabiyeen, waxayna gubeen deegaano shacab oo ay ku noolaayeen dad masaakiina. waxay si xoog ah ay uga qaateen xoolo nool shacabka halkaasi ku dhaqan ayuu yidhi. daawadayaal, qodobkaasi ayaa u dambeeyey barnaamijkeena dabagalka. haddii aad nala soo gaartay qaybtan, fadlan muuqaalka like dheh, channelka subscribe dheh oo u sii sheer garay saaxiibadaada kala duwan.